السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن داوديال qodobada aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa kamid ah dagaalkii aad ka cuslay oo xalay saqdhax soo bilowday ilaa duhurnimadan maanta soo gaaray ee ka dhacay magaalada Buulaxaawo ee gobolka Gedo oo la soo gabagabay gudoomiyaha gobolka Gedo oo warka soo saaray warbixin muhiim ah ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland oo dawladda Soomaaliya ku qabatay dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Buulaxaawo ee gobolka Gedo sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan tirada dadka shacabka ah ee ku dhintay dagaalkii ka dhacay magaalada Buulaxaawo ee gobolka Gedo iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ka dhacay gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Buulaxaawo iyo ciidamadii aad ka u tirada badanaay ee lagu qabtay dagaalkii Buulaxaawo oo aan wareysiyadooda halkan idin kula wadaagi doono qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan inta uu barnaamijku socdo haddaad nagu cusub tahay subscribe saaro like taabo siina share garay calaamada gambalelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horey noola joogto waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga mahadsanid waa 25 bisha koowaad 2021 dagaalka ka dhacay Buulaxaawo ayaa bilowday saqdii dhexe ee habeennimadii xalay ahay aynu soo dhaafnay waxa uu soo gaaray saakay ilaa iyo duhurnimada maanta dagaalkaasi waxa ka dhashay khasaare aad u tiro badan oo soo kala gaaray dhinacyadii meesha ku dagaalamay iyo waliba dadka shacabka ah oo deegaanka ku sugan dadka shacabka ah dadka meesha kaga dhintay waxa lagu sheegay in ka badan 8 qof oo ay ku jiraan 5 qof oo hal qoys ka soo jeeda kuwaas oo ku fadhiistay madaafiicdii ay is weedaarsanayeen kooxihii halkaas ku dagaalamay inta aanan muuqaalka gudaha u sii galin bal ila daawada qaar kamid ah maxaabiistii la qabtay oo ka hadlaya sida loo qabtay iyo qaabka ay wax ahaayeen iyo sida ay meesha ku yimaadeen intaba kuwaas waxa ay ahaayeen askartii la soo qabtay oo markii la soo qabtay meel inta la isugu keenay la fadhiisinayay bal aynu daawano wareysiyadoodana waa kuwaane waa askartii Buulaxaawo ka bixisay markii hore askartii xagga ajirtay tiida naagaysay oo nawaday marka ayagu ay dhowr raal aan qonay ayaga markay xabadooda ku bilaabeen annaka meesha hadda ay wiilasha naga soo wadeen yaan ku harnay xabadna ma naridin kaas waa mid kamid ah dadka maxaabiista ah ay qabteen ciidamada dawladda ninkan waxa uu sheegayaa inaan la qaban ee uu asagu is soo dhiibay anigu xabadba ma aanan ridin ayuu yiri meeshii ciidamadu nagu yimaadeen ayaan isku dhiibnay sidii ayaan ku soo tagnay ayuu leeyahay bal aan daawana mid kaanne مختار والي قنا وهاك deegaanka gobolka Gedo صح dadka ceel laqla keenata garleedan ka imaaday garlee Abbas leedo ku keenay garleedan ku keenay hadda mudabal ila ka cashay taameena yaa meesha ku sugnaa ragaas marka maadnay waxaan bilanta intaan ku arkay isla joognay marka seen bariga intaan caalan Jubbaland ay waxaan intaan caalan Soomaaliya ay gaarsiisan tahay cadaawada iyo dagaalka meesha la isku hayo heerka uu gaarsiisan yahay waxa aad ka dareemaysaa askariga wareysanaya ninkan waxa uu ku celcelinayaa wariyaha macalanka Soomaaliya ayaa jeceshahay masacalanka Jubbaland maxbuuska la wareysanayana waxa uu leeyahay aniga calanka Soomaaliya iyo calanka Jubbaland ayaa labadeeda gacmood ku kala xiran labada gacmood waxa midiga dagaalka dhaxeen ka December calanka Jubbaland oo sheegaysa muhiim u yahay Soomaaliya marka loo eego calanka Soomaaliya muhiim ma calanka Jubbaland baa difaacaysa hadda oo soo dagaalgalay ma soo dagaalgalin rag mas'uuliin oo ku simeeyay labada calan rag mas'uuliin far kamid ah la saxay raajili marka fursad soo baxay deegaanka ma garan labada calan ku simeeyay calanka Soomaaliya ilaa caalamka looga yaqaan waa kee calanka Jubbaland Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo oo hadlay waxa uu sheegay inay in ka badan 200 oo askari ay gacanta ku dhigeen ayna hayaan ayna soo bandhigi doonaan qaybta ay soo bandhigeen dawladdu sida oo wasiirka warfaafinta ee dawladda uu sheegay ilaa 100 askari ayaan haynaa ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Gedo oo wax yar ka hor hadlana waxa uu sheegay in ka badan 200 inay hayaan marka maanta ciidamadii Jubbaland ee soo weeraray Buulaxaawo shab weyn ayaa gaaray ayaa leeyahay waaba la soo qabtay ciidamo aad u tiro badan ayaa la qabtay walow ay wararka qaar ay sheegayaan inay dadkan ay ayagu is soo dhiibeen maadaama dhibaatooyin badan ay kala kulmeen maamulka Jubbaland waa sida ay hadalka u dhigeen qaar kamid ah kuwii la wareystay oo sheegaba inaan ugu yaraan 6 bilood aysan wax telefoon aysan arag familkooduna aysan la hadlin
meel la geeyay xero lagu shubay xeradaas ay iska joogi jireen bal markaana ila daawada hadalka wasiirka warfaafinta Soomaaliya laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow khasaare nafeedna uu soo gaaray sida loo jabiyay baan rabaa in yar inaan idinka brief gareeyo ama idinka tilmaamo koo horta xoogga dalka Soomaaliyeed Somali National Army ciidamadeenu way diyaarsanaayeen aan idinka dhaxgale madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo asaguna hadlay waxa uu sheegay ay soo weerareen koox ay u kala garan waayeen al-shabaab iyo ciidamada dawladeed mar walba waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jaha kasta diyaar garowgaasi wuxuu baajiyay ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqaynayeen cadawga iyo cadow kalkaalka muddo dheer waxa kale oo nimanka jabiyay shacabka Soomaaliyeed oo naf iyo maal isla barbar taagay ciidankooda xoogga dalka oo u hiiliyay cidda shacabku raaco ayaan baan bar walba guushan hadalka wasiirka iyo marka la isku daro qaar kamid ah maxaabiistii la qabtay waxa ay u badan tahay inay ciidamadaas u ahaayeen kuwa is soo dhibay wasiirku waxa uu leeyahay ciidamadaas waxaaba laga yaabaa ayuu leeyahay inay ahaayeen qaar mar uun meeshaas taga si aad isku dhiibtaan islahay bal ila daawada tan saddexaad ee araxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha la soo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyadu haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo way ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen maalmo ka hor ayay ahayd markii magaalada Dolow lagu soo bandhigay saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Jubbaland waxa laga yaabaa qolays lahayd in maruna magaalada tagtay in iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamay sidii ay wiilashiisu soo dhiibeen morally may haynin ay ku dagaalamaan moral la'aantaasina iyo niyad la'aantaasina waxay keentay in ay jabaan oo ciidanka aan niyad haynin ma guulaysto kuma qanacsanayn dalkaaga ku duul hooyada ku duul walaasha ku duul gurigaaga ku duul kuma qanacsanayn sababtaana way u jabaan xilligan aan idin la hadlayo magaalada Balad Xaawo iyo goobihii saaka lagu dagaalamay guud ahaan waxa gacanta ku haya maamulka gobolka Gedo ee dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadii Jubbaland ee weerarka soo qaadana qaar firxaday oo dhinaca magaalada Mandheera u firxaday iyo qaar la qabtay ayay noqdeen muddo badan waan ku taamay inaan xoog dalka aan u imaado laakiin se xogaa sabxume muddo bil 12 casha waan xogaa ku dhex jiro xalay baan soo baxnay halka dagaalku ku jira Abbas meeshaan kaga soo tagnay sidoo kale waxa waqti dheer qaatay ayaa leeyahay ciidamadii saaraay daba shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo aad meeshaas uga dagaalamay saraakiishu waxa ay dhaheen ayaa leeyahay sida aan xogaha ku helayno yaan la duduminin shirkadda waa hanti dadweyne hanti aad u fara badan oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ayaa taala sidaas awgeedna makroofano ayay soo qaateen oo codbaahiyaal ayay soo qaateen codbaahiyaashaas ayaa lagu la hadlay waxaana loo sheegay in la badbaadin doono oo wax dhibaato ah loo geysan doonin hadday si nabadgelyo ah ay isku dhiibaan ugu dambeyn waan badan iyo wada hadal dheer kadib waxa ay ogolaadeen inay is dhiibaan hantidii meeshaas taalana dhibaatooyinkii dagaaladii meeshii intii ka gaartay maana inteedii kale inay bad qabto ayaan xogaha ku helaynaa marka guud ahaan dagaalkii saaka meesha ka dhacay dad shacab aad u badan ayaa ku dhintay 5 caruur ku dhintay Abbas waxaan leenahay Ilaahay sabr iyo iimaan ha ka siiyo sidoo kale dadkii kale oo waxa waaye shacabka meesha ku dhintay ayagana Ilaahay ha u naxariisto sidoo kale labada gees dad aad u fara badan ayaa ka dhintay laakiin tirada saxda ah ilaa hadda lama hayo oo labada dhinacba mid wixii ka dhintay ilaa hadda soo sheegay male maamulka Jubbaland wali waa uu ka aamusan yahay oo kama uusan hadlin ciidamada aadka u faraha badan ee laga qabtay wixii xog ah ee ku soo kordha halkan ayaad kaga bogan doontaa maxaa fariino u diraysaa waxaan fariino u dirayaa nimanka way khaldan yihiin wayna gal daran yihiin hadday Kenya ay ku xiran yihiin Kenya way khaldan tahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee maxaa meesha lagu hayo ee la khaldayo dadkoodii iyo dadkoodii ee Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ee federaalka xoogga dalka Soomaaliyeed ha ku soo biiraan maxbuusiintan marka aad u fiirsato waxa ay og yihiin dad meeshii ay joogeen ku cadibnay
bal daawo maxbuuskaana oo sheegaya in taleefanadii laga aruursaday dhammaan ciidankii meesha yimid oo dhan oo wax taleefan wata uusan ku jirin intiina hadda telefoon ma haystaan telefoonada aad haystaan hadduu maxaan ku raadaaye ninkii ciidan xukuumeed kor idinka haysto hadduu telefoonada idinka aruuriyo oo maxaan ku raadaaye 2 bilood telefoonada idinka hayo maxaad samayn lahayd waa arrin qaldan soo ma la istaayal baa soo ma telefoonada anadi baa maqan la istaayal ma waxaa jirta waalidiin Soomaaliyeed oo maalin walba raadiya caruur tababar loo diray oo askar loo diray waa ka wasiirkii waa dhameeyay shirka jaraa'id ka tagay dabcan waxaan doonaynay inaan weydiino su'aalaha la xiriira ciidamada ku maqan Eritrea ee la sheegay in halkaas ay jiraan waa wasiirkii waa tagay